بسم الله أنا مقاعي وجابر تمير كينيا iyo Soomaaliya dhexdeeda hadaan ka hadlo khilaaf ku jira waxaan is leeyahay Kenya waxay ka heshay Soomaaliya wax xaq ugu lahayd waayo wixii Soomaaliya laga rabay bay Kenya hadda sameynaysaa qofka marka uu istaag ku arki waayo iyadoo jifana kuma arkayo ma ogtahay Soomaaliya waxay ahayd Kenya inay horay uga gaashaamato maanta waxa lagu sameynayeen waxaan is leeyahay wax farmaajo keenay jilaac anoo wadan shacabkana farmaajo waxaan islaan waaga horeeto in khatar ay yimiyo wadamada dhan buu gacan biro ku qabanaya laakiin hadda wax ka muuqata inaanu ahaynba yaani kuwii hore la sambal yahay macnaha aanu wax si buuran dhaamin marka waxa laga rabaa inuu dawladdu inay iyadu ka hadasho ama ay waajibaad ka saaran Kenya iyo waxa weey Soomaaliya ay toos uga hadasho marka waxaan leeyahay dawladdu ha taagto Kenya waa sax awooda kaliya ay leedahay Soomaaliya oo hadda ay Kenya ku eersan karto waxay la mid tahay dagaalaha adduunka dagaalka wax ku jira Kenya maadaama ay joojiso Soomaaliya qaadka iyo ka soo galaya dagaalaha intaas oo ku filan ba Kenya awoodeedu waa intaas hal mar ay joojiso waxa laga yaabaa intaas umleeyna qasaado dadkeedu baahay u dhintaan qalad baan warka in dad xubno kamid ah dawladii in lagu carqaladeeyo maxaa la lahaa garoomada Kenya oo laga soo celiyo sharci diblomaasiga wateen in loo diido wadana wadankii gudihiisii ee xor ku haysan waayeen wax macnaheedu haboon maaha xawaaladahaas waxay imaanaysaa isku dhac siyaasadeed ba ka dhalan kara run ahaantii waxa ka dambeeya isleeyahay hadba waa ogeed aduu arrinkii badda Soomaaliya lahayd oo la maxkamadda oo la inay diiday fiisa u diiday xildhibaanada Soomaaliyeed iyo wasiirada Soomaaliyeed iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed taasna waxaan u maleynayaa inay cunuqabateen uga dhigayso Soomaaliya si ay uga fushato howlaheedii ay danta ka lahayd macnaha barnaamijkii xeebaha iyo saasan martay barnaamijka saasan ku qiyaasaya laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed inay arrinta u dhabar adeegaan ay iskana kaashadaan insha Allah oo barnaamijkaasina dawladda hadda waa ka aamusantay warbixin ay ka soo saarto rasmi insha Allah magacaygu waa Mawduuc Cilmi Xange ku nool magaalada Boosaaso runtii arrinta Kenya maanta ay sameynayso oo inagu la dhaqantay ay u horeyso xuduudkeeni maxaan ku yiraahdaa badeeni ay ku xigto xildhibaanadii shalay sharafta lahaa sidii loola dhaqmay ay ku xigto maxaan ku yiraahdaa waxa weeyaan ciidamadii dhaqaalaha burburinayay oo Kenya runtii waxaan isooran karaa waa arrin macna waxa weeyaan u baahan ka fiirsasho badan in laga fiirsado dawladda federaalka hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre waa ku kalsoonahay tilaabada ay ka qaadi doonaan iyo waxa uga aadan oo aad baan u kalsoonahay because of waxa weeyaan dad degdega kuma naqaan madaxda hadda qaranka oo dawladdan maxaan ku yiraahdaa nabad iyo nolol runtiina waxaan isooran karaa tilaabada laga qaadi karo ugu dhow ugu macquulsan in ay tahay in la joojiyo diyaaradahooda qaadka ganacsigooda annagana ganacsigeena aan ka joojisano only intaas wax kale in la isdagaalamo macna weyn ma soo siyaadinayso in qoriyo la isu garto in waxa macna ma soo siyaadinayso laakiin kaliya in population kale isdhex galay iyo dadkii iyo ganacsiga inaga dhaxeeyay la kala hago oo waxa weeyaan ayagana diyaaradahooda la joojiyo annagana diyaaradaheena aysan gelin Kenya inta kaliya